wafdigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya uuna qayb ka yahay safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya waxa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Lugo Dheere waxayna ay qayb ka yihiin mashaariic horumarineed oo laga fulin doono magaalada Kismaayo ujeedada safarkan wafdigan waxa uu ka mid yahay sidii mashaariic horumarineed ay kaga fulin lahaayeen magaalada Kismaayo taasoo qayb ka mid ahayd mataaneynta magaalooyinka Anatolia ee Kismaayo madaxweyne ku-xigeenka labaad dowlad goboleedka Jubbaland markuu ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha wafdigan waxa uu saxaafadda u sheegay inay diyaar u yihiin mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo magaalada Kismaayo maanta tigada diyaaradaha caalamiga ah ee Kismaayo aan ku soo dhaweyno wafdi oo hogaaminayo safiirka dawladda Turkiga oo aad u ballaaran oo booqasho rasmi ah ku yimid dowlad goboleedka Jubbaland safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Becker ayaa u sheegay saxaafadda inay sii wadayaan dadaalada iyo horumarinta mashaariicda horumarineed ee ka fulinayaan magaalooyinka Soomaaliya hem Türkiye'den konuklarımız var hem Mogadishu'dan büyükelçilik bünyesinde çalışan arkadaşlarımız burada değişik kurumlardan hem de Mogadishu'da iş yapan wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Saadiq Cabdullaahi Cabdi ayaa kaga mahadceliyay dawladda Turkiga dadaalada ay ku horumarinayaan Soomaaliya sidoo kalena wuxuu sheegay in mashruucyada ay ka fulinayaan Soomaaliya la gaarsiin doono dhammaan gobolada dalka waxaan rabaa inaan idin sheego in xiriirka dawladda dhexe iyo Turkiga uu aad u wanaagsan yahay laakiin ay muhiim tahay in hoos loo sii dagaandego oo heer dawlada hoose muxuu ahaa la gaarsiiyo wafdigu wuxuu ka turjumayaa arintaas waxaanu rabnaa inaanu meel kasta oo Soomaaliya ah aanu muxuu ahaa gaarno si xiriirka dawladaha hoose ee Turkiga iyo dalka Soomaaliya uu hagaago markan oo Kismaayo u maaday inay mataaneeyaan magaalooyinka Kismaayo iyo Anatolia ee dalka Turkiga waxa qayb ka ahaa safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Becker iyo wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska guryeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Kismaayo